shirkani oo mid ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee beesha Sheekhaal sida culimaaddin, salaadiin, siyaasiyiin, waxgarad, haweenka gaar ahaan xildhibaano ka socda beeshaasi. kulanka ayaa waxaa looga hadlayay qaabka beesha loo doosiyay qaybta ay ku lahaayeen maamul sameynta gobolada dhexe dalka oo beeshaasi ay degto. kulanka ayaa waxaa hadallo ka soo jeediyay xubnihii ka soo qayb galay iyagoona goobta ka soo jeediyay inay jecel yihiin inay ka qayb qaataan maamulada gobolada dhexe dalka waxayna dawladda Soomaaliya ugu baaqeen inay dib u eegto arrinkaasi. anigu war tiro badan oo ma istaagin waxaan rabaa inaan wax ka ilaahdo waxyaabaha loogu sameeyay loo yiri waxa maamul loo sameeyay gobolada dhexe marka hadde anagu waa rabnaa in maamul loo sameeyo inaan ka qayb qaadano waa rabnaa waxaan nahay dad dawlad raba dad nabad raba dad maamul raba nahay dad nabadeed baan nahay ma diidanin in maamul la sameeyo laakiin waxaan diidanahay si aan noo cuntamin oo aan noo qaadmin in naloo yeeriyo walba oo dadka meesha degan dadka la degan yahay waan la degannahay anagu beel nabadeed baan ahayn dadka islaayo oo dadka magaciisa aan mid ma ahayn waayo ninku markuu ilaahay yaqaan maantana ay u ogyahay in maantana ay maalin adduun tahay barina ay maalin aakhira tahay ku degdegi maayo qof muslima xaqiis iyo xaqdiga inuu galo marka deegaanka dadka degan dhulkaas qolo walba waan la degnaa deegaan gaar aan u degnaana way jiraa waayihii dhibaatadu jirto laba reeraha dadka dhulka degan isku leeyin jireen waxa lagu baxsan jiray Sheekhaal baanahay wax jiro cadaan way deegaankaas wuxuu ka soo bilowdaa ilig daldalin wuxuuna ku yimaadaa eeldheer inta u dhaxaysa dadka degan qolo aan la degin ama deegaan aanan muhiim aan wax uga ahayn ma uu jiro gabagabadii kulanka ayaa waxa goobtaasi laga aqriyay oo saxaafadeed ka soo baxay shirkaasi falanqeyn iyo dood dheer kadib war-saxaafadeedka beesha Sheekhaal ka soo baxay wuxuu yahay koow in beesha Sheekhaal lagu xaqiray maamul sameynta gobolada dhexe sidaas daraadeedna aysan ka qayb galin maamulka hadda socdo ee lagu xaqiray labo in beesha aan lagala tashan maamul sameynta gobolada dhexe saddex in beesha Sheekhaal ay degan tahay gobolada galgaduud sida eeldheer iyo cadale gobolka mudug ay degan tahay xaradheere hobyo dhinoodo iyo afarwaaqo iyo kuwa kale in xildhibaanada beesha Sheekhaal ay doonaan xaqa ka maqan beesha Sheekhaal ayna wakiil uga yihiin beesha xaqa ka maqan lix beesha Sheekhaal waxay cambaareynaysaa oo dhaleecayn u soo jeedinaysaa guddiga farsamo ee wax qaybiyay ee ahaa wasiirada sida wasiir Mustafa Dhuxulow wasiir Mahad Salaad wadooyinkii ugu dambeeyay waxa soo badanaya eedamaha kala duwan ee ka soo baxay qaabka ay dawladda Soomaaliya u wajahday maamul sameynta gobolada dalka Maxamed Ibrahim Gabo Royal TV Muqdisho.